ayaa khudbadiisii inoo akhriyi doona si fiican aan u dhageysano. Ladies and gentlemen, now is the President-elect, President Muse Bihi Abdi's speech. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدنيال iyo marwey waxaan ugu horreyn salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore oo ah tababarihii nolosha siyaasadeed ee soo tababaray muddo 5 sannadood ah Ahmed Maxamed Silaay. madaxweynihii ka horreeyay Daahir Riyaale Kaahin oo ahaa madaxweynihii bilaabay inuu doorashada bilaabo kuna magac iyo maamuus leh inuu xilka si nabadgelyo oo doorasho ah wareejiyo. waxaan mahadnaqayaa wararkan ka hambalyeynaya golihii wasiirada ee xukuumadda Axmed Maxamuud Silaayo oo dalka 5 sannadood hawlo laxaad leh oo horumar ka qabtay si uu la geliyay inay doorashadu si nabad ah u dhacdo. waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynayaashii ku-xigeenadii hore oo saaxiibaday ah oo ugu horreysiinayo Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo aanu isku waqti yada ahayn maantana aan aad ugu faraxsanahay inuu ka soo qayb galay. madaxweyne hore Cabdiraxmaan Cali mujaahidkii weynaa oo isagoo hore dalka ugu soo madaxweyne ku-xigeen iyo Sheekh Axmed Yuusuf Yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka. waxaan kaloo halkan ku soo dhaweynayaa aad ugu mahadnaqaynaa golaha guurtida guddoomiyahooda oo oday mujaahid rugcadaa ah oo in badan dalka u soo shaqeeyey, guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe oo in badan soo hogaaminayay golaha wakiilada. waxaan si gaar ah kaliya u soo dhaweynayaa saaxiibkaygii ila tartamay ee ii haneeyey ee 2 goor hore dalka intuu ku tartamay haneeyey Faysal Ali Hussein Faysal Allah. waxaan kaloo hambalyeynaya meel jooga soo dhaweynaya saaxiibkayga ila tartamay oo dalka dibadda kaga maqan mudane Cabdiraxmaan Abdullaahi Cilmi oo isaguna ogolaaday natiijadii iyo xisbigiisaba. intaa kadib waxaan soo dhaweynayaa madaxda inoo timid ee dalalka jaarka ah iyo kuwa fogba. waxaan ugu horreysiinayaa saaxiibadayda ama aan isku dhowanahay af iyo diin iyo dhaqanba ee jamhuuriyadda Jabuuti ee uu hogaaminayo saaxiibka Cali Xasan Bahdoon. waxaan soo dhaweynayaa madaxda ka timid Ethiopia dowladda federaalka Ethiopia dhammaantood oo si gaar ah u soo dhaweynayo dowlad deegaanka Soomaalida oo af iyo dhaqanbooda aanu isku nahay oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenku iyo dowladda federaalka Ethiopia guud ahaanba wasiirka gaadiidka Axmed Shide oo naga mahadnaqayno saaxiibtinimada dhaxaysa. waxaan kaloo aad soo dhaweynayaa dalka Kenya gabadha uu hogaaminayso waqtiga xildhibaanada ah oo ku hambalyeynayo inay tahay gabadhii koowaad Safiya ee noqotay xildhibaan dalka Kenya Soomaaliyeed. waxaan leeyahay maanta dalalkii Soomaaliyeed qaybtii Jabuuti qaybtii Ethiopia qaybtii Kenya Somaliland waxay naga dhigeen maanta qaybtii Muqdisho oo ay ahayd iyagoo qaranka Soomaaliland ixtiraafsan ka soo qayb galaan. afirayana in dhawaan ka soo qayb gali doonaan oo aan iskaasho doono oo aanu dad iyo dhaqanba wadaagno laakiin ay arrintayadu suurtoobaday inay mid noqoto duruufii dhacay awgood. deetana nin waliba dowladdiisii iyo qarankiisii gaar u dhistay iyagana waa u dacaynaa dhibaatada ka baxaan iyagana waxaanu ka rajaynaa inay u hambaliyaan wixii talaabo horumar ayaanu sameynay. intaa ka bacdi waxaan si kalgacal iyo xishmad u soo dhaweynayaa wufuud ay nooga timid dalalka Yurub, dowladaha EU-da ama Yurubta midowday oo ay hogaaminayso guddoomiyaha ambassadorka EU-da
فضيا كينيا أو صاحب دو لا سوماليلاند iyadana waa soo dhaweynaa iyo ambaasada kala socda waan uga mahadnaqaynaa taageerada inoo waxaa kaloo si gaar ah soo dhaweynayaa oo muddo karnimo safiirka UK oo halkan 3 jeer noogu yimid wiiga baraha gudaheed oo noo muujiyay inuu naga xigo kuwa kale sida uu noogu dadaalay iyo ballanqaadkii lacageeda maanta halkaa ka muujiyo ku taageeraya Somaliland سكريا الله نمسون وينا ونوجمع نقل دولة UK دولة أول رئيسي هذا كنا واقع طبعا مدكر كسوماليلاند إيوه ما حدا قبل كان لوجي من دولة إثيوبيا يصوم أي جيبوتي وآديات برسولوية سجارة وحرسولوية يا وجالس كجودة بروي تعيسة مصطفى أو ما تمرك ولا يسوع أمريكي أو تليفون كيجنا سوا هذي هذا مرتقاتي في وقت بيسي سولو مصطفى قرأت كباش يتهلي أديك أقول سوالي كتير واحد بريت هلا قرأ الله أنت كلا تفرغ وأقول عليه الله أكبر كذي سولو أنت مركان دافع سولو وأنت يا محضنقة ما أنت أنا أقول برشلونة ما شبيرنا أنت الله يهرب تاجن وحندري مياه عرايسكا يا ميساك عيرة هاي حلك لا يداريه سوماليلاند حلك لا يداريه سوماليلاند عريسك أوليه وحن خصوصا يا وحلو صبري كوي ونتنا في ظهري كوي كنا وعمي كوي مالك ظهري كوي أقومي يكوى كوي ما تنام يقول أنت شرفته يا ماموسكا aynu maanta ku jirno nagu qadarnayaa waa dhiigii dadkii Soomaaliland u soo huray taariikh ahaan marka laga soo bilaabo ilaa daraawiish ilaa asal Soomaaliland waxay leedahay taariikh dheer oo mar walba gobolnimada ay u dagaalanto hadduu isticmaal yahay iyo hadduu cadow ku soo duulay yahay iyo hadduu maamul xun oo qabsadaba yahay taariikhdu waxay leedahay Soomaaliland inay leedahay taariikh ugu horeysay ee si miisaan loo dagaalanta استعمار كي عطاء يفلك سودوري دراويشتي سيد محمد عبد الله حسن واحد قادنا سا تاريخ كو عدة قرى أفريقيا ديارة ودقية وحسين وهات كي وحكو حقي تاريخ دي أهين شيخ بشير يا علماء كذا قالتين قميصية تشيكو ينفتض وهوي وحكو سو حقي كوي سياسة كوسو ضيال قلي حزبية دي SNL NUF USB يدتكي هجامي وما أنت بدل كل المهزأة واحد كسر حياي أسهل واحد دوري هالكن كعبد يدت بدن والتاريخ له أما وحي شيء سكر ذو فهم سن ولا ريال سومالند سميدي أسهل من سومالند ويدعلمي تاريخي مع عنك جاهاي نحرس الدرها سومالي ودنا فيي مركي أن لو دعلمي دحلنا يصير خلاف كأبوري oo laga yaaba inanka joogay sool in laga dhaadhacsiiyay SRM gurigaaga iyo reerkaaga weeraraysa dabeetana uu daafacayay wuxuu la mid ahaa kii SRM ee ka daafacayay Soomaaliya oo dhan dhibaatadii ku ahayay tarsiya fuul inanka booraba joogay ee la dagaalamayay SRM uu haysan cayb uu qabay SRM iyo cadaawad ka dhaxaysay ee waxay ahayd balaaye iyo aafo uu ka dhaadhiciyay taliskii siyaad barre oo ahayd SRM waxay kusoo duulaysaa dalkaaga iyo dhulkaaga iyo carruurtaada iyo dumarkaaga isaguna wuxuu ahaa nin la mida SRM oo daafacayay dad Soomaaliland isaga oo waakayay cadow ku yihiin shirkii boorame waxaynu ku heshiinay oo lagu qoray ahdi qarameedkii in Soomaaliland iyadu aanay nacayb iyo colaad sudin in lagu dhaxaruuray masiibada dhacday sidaa darteed kii ka dagaalamaya laascaanood iyo kii boorama ka dagaalamaya iyo kii SRM inay intuba isku xuquuq iyo karaamo iyo sharaf yihiin oo ay dhammaantood Soomaaliya daafacayeen oo kooda dhintay iyo kooda dhaawaca iyo kooda maanta jooga ay ku noqon doonaan ahli qarameedka Soomaaliland mid siman oo ay wada leeyihiin oo aanu midna mid cadow iyo xumaan u ahayn oo taariikhdu wada leeyihiin halkaas laga soo bilaabay Soomaaliya halkaa hadii laga soo bilaabay intii ka dambeysay inta aanu soo maray ee shiraha ay u dhammayn gurmadkii uu soo galay inay Soomaaliland midowdo ee uu siyaad barro ugu bareeray garaad Cabdulqani
وكل مدبل لي جمله وهلك كسوي تتويي واقي نبتي سكون ما تبرعون يبون واقي لو بسنة 97 دولتي لما مركز لما دولتي هذا عشان يعني قرمة وكيماتي شيخ مكان قراك نو أخي شيخ عبد الله عبد الجبار أيوة السعودان عبد الرحمن وعلي ومجاهد كي وينها يا سلامة وكل لبض عيدا اسمه كان الدراء أن رد كون قاضي إذا تقول لي هل كان بقات في كان قاضي إسقى يقول تسعتي يا شيخ موسى قولان لهاي يا شيخ أبو بكر لهاي يا أنتراد لهاي يا دمات وسوق ما يحتى غردوفون كل حذينا واتيان وسوق قبل شركي بورمي ولا يهمني كان وسوق لي الدولي إيوه تي سياسة أن كسول البوليسني وتامات شرف عارف بلومي عارف هذا بلوم كيرانيو اللي بقى يكسر وحنا بلقانه إن أنا تاريخ راعو إذا كوه جامية وسيا يسوه جامية عبد الرحمن محمد أحمد علي محمد حاتم عقال داين ريال كارين إيا أحمد سيلاي وما تود به وضالي سوماليان قرنمة بالدماء إيا نسيا أيام هاي دوما وإن شاء الله وش سنة كبعدي إيا صار إنسان عندي لوضو تنمي دوما تاسوال سنة سوماليان كدحي أنت هو حلول بيه سوماليان وحا أي صومر سيدر صوري ستي أي كصوب بلوضي كل بتولي يشل وحا أي دورش صوب يشل أي تيمان تقود بيسي سوماليان كليجد باسميسي waxay naga caawin jireen wax yar mooyaane ilaah iyo qaran bixiyaashu xagga biyaha iyo caafimaadka iyo dawladiska iyo security-ga iyo tan u dambeysay doorashadan dhamaanteed 80% waxa bixiyay Soomaaliland haday lacag tahay haday aqoon tahay haday suuqaasho tahay haday laan tahay waxaan mahad gaar ugu noqonayaa oo ilaahay ka warmariyo ku amaano taariikhda ku mudan guddiga doorashooyinka qaranka waxa ammaan ku mudan oo hirgeliyay oo xuduudna soo xiray oo ammaankeena ilaaliyay ciidamada qaranka kala duwan oo loo abaal iyo gabadh ku hayna oo aynaan la'aantoona maanta ka fadhiyo doorashada ay qaadeen oo ay xusuusnaan doonaan qadari doonaan haddii ilaahay ilaado waxaan u sheegaynaa caalamka inaan deyn ugu lahayn waa kuwa ka fadhiya inaan deyn oo aan baanka adduunyada weyn caawinin oo baanka Afrika caawinin oo dawladaha Carabeed caawinin oo kuwa muslimka caawinin doorashada iyo hawlaha ilaahay iyo wadada soo basbasho walaalaha Soomaaliya jooga xarro waxaan u sheegaynaa inay soo tashadaan oo wadada raacaan oo ay ka baxaan ku tirsanaanta dawladda sheegay ciidan iyaga hawlahooda siyaasiga u qabanay inta wax ka gudbaya araarta Soomaaliland iyadoo intaas oo dhan soo qabatay iyadoo waxa soo guura gaadhay haddana waxay hor yaallaan maanta dhibaatooyin u baahan inaan wada jir ku maarayno oo aanu xisbi gaarina maaraynayn ninna kaliya aan ku maaraynayn waxa kamid ah cimilada isbedeshay ee abaaraha dalkeena ku noqdaan xoolo yaraadeen waxa kamid ah sicir bararka iyo lacagta hoos u dhacday waxa kamid ah qabiilka oo aad moodo inuu qarankii la dagaalamayo oo ka soo horjeeda oo ay wada socon kara leeyihiin waxa kamid ah shaqo la'aanta hawlahaas oo dhan waxaanu maareyn karnaa midnimo waxaanu ku maareyn karnaa wada tashi haddii aynu soo qaadno dhibaatooyinka inagu xoog weyn oo kuwa dhaqaalaha oo ay ka mid tahay lacagteena hoos u dhacaysa oo keenaysa saboolnimo iyo dhalinyarada shaqada la mustaqbalkeena ah waxaynu ku maareyn karnaa walaalayaal inaga oo marka hore qalbiga iska aamina oo dalkeena wada dhaqana oo ka baxana qabiilka iyo deegaanka iyo tuulada waxaanu kaga bixi karnaa iyada oo aynu ganacsatadeena dadka hal abuur kale ee shirkadaha waaweyn inoo sameeyay iyaga oo caalamka ina ictiraafsanayn oo aan day ka qaadan baananka oo aan la xiriirsanayn baananka sharciyad ay ersi u furaan lahayn ragga iyo hablaha inoo sameeyay dhaqaalaha intaa la iyo horumarka iyo qaran iyo xukuumadda markay labadoodu iskaashadaan wada shaqeeyaan ee haddayna isu dhugayno waxaanu qaadi karnaa tallaabo weyn oo aynu shaqalaanta kaga baxno oo lacagteena kor ugu qaadno oo aynu dhaqaalahayna ku dhisno markaasaa caalamku wixii caawinaya inoo iman doona waayo markii dhisa aynu akhritaa taasi waxay u baahan tahay fikir iyo hawl waana qorshaha dawladda aan ku soo haddana ay ku dhaqaamayso
waxaynu kaga bixi karnaa faqriga iyadoo oo sidii sheekh cabdillaahi halkan ka sheegay aynu muruqeen iyo dhulkeena aamino lama arag caalam dad dhan oy waxba beeran maayo haddii aan cuntada la beerana waa garow iyo arbakhiyo ma cuno oo waxaan doonaynaa cunto annagoo annaan beeran oo laga yaabo caafimaadkeeda iyo tayada cuntada aan la garanayn oo ay ka muuqato maanta cuntoxumada dalka taalla ee laynoo soo waaridaa dhallinyaradana koraysa sida oo kaade haddii aynu markaa dhulkeenna beerano cunteeda la soo baxno oo xooggeeda aynu leenahay walaalayaal gaatada in badan ka baxaliya sicirbarka iyo shaqalaanta dalkeenu maanta wuxuu u baahan yahay waa 450 kun oo tan oo cuntada oo ah midho waxaynu haysanaa ilaahayna siiye xoolo oo brotiinka maanta adduunka o dhan laga laayahay waxa ilaahayna siiye kalluun oo inaarmida la soo bixi haddana carruurteena maanta nafaqadara ka muuqata iyo inaga waa tamar la-aan waxaan u baahanaa inaynu xoogga u jeedsano haddii gobol walba 15 kilomitr kaliya beero bal gobolkana sanaag intuu leeyahay bal inta biyo martaa gobolka sanaag haddaynu 15 kilomitr kaliya beero walaalay oo aynu u jeedsano faray ka baxnaan gamuruqale dalkeena cunto ku filan wehelida maanta waxay nagu ceeba inaynu ka soo iibsano dalalka jaarkeena tamaandhada wax kale iska daayo inagoo dalka intaa la iyo biyo intaa la galo dabcan waa runtii way yaraadeen laakiin waynaynu helnaa hab casri ah oo xoolaheena aynu hadda u dhaqno xoolihii guurayay ee soconayay ma soconayso abaaraha dhacay iyo cimiladiisa darteed inuu helo dhulkii u daaqi jiro wareegeysto xoolaha in la dejiyo oo calaf loo abuuraa wax weyn ma aha waxaynu haysanaa dhakhaatiir xoolaad oo fara badan oo aqoon leh laakiin waa laga dhegaystaa oo dooda raaca maalqabeenku waa inuu maalgeliyaa xoolaha nool oo ah waxa dalkeena ku habboon ilaahayna siiye iyo kalluumaysiga ku dheeraan maayo hawlaha inoo yaalla oo aan doonayo inaan wadajirkooda noolo haddaynaan wadajirkooda gelina saas baynu baahnaanaynaa farquri fool ma dhaqdo dadkuna wax wadqan ku furay waxaan u gudbayaa doorashada iyo xanafteedii waxaan diyaar u ahay oo tallaabooyinkeeda inaan qaaday haddana aan wadaa waxa lii waxay xanaaf ka dhacay doorashadii inaan bogsiiyo oo weliba aniga laygu jiibsado oo xisbiga kulmiye lagu jiibsado oo walaalada iyada wax tirsanaya aan qaboojino iyagana waxaa laga rabaa walaalada wax tirsanaya inay gar qaataan inay gogasha soo fadhiistaan waxbaan kaa tirsanaya kuwa soo fadhiisan maayo waxbaan kaa tirsanaya gar qaadan maayo ee waa dhanteed madax dhaqameed iyo odayaaliyada doowarmayna qabataan diyaar baanu u nahay inaanu gobol ugu tagno waa u tagnay xaruntoodaan ugu tagnay waanu wada shaqay madax dhaqameedkooda waanu heshiinay wixii ay u amreen waan qaatay waan la arki doonaa aniga oo weliba ogol dadkii foodka badan ee guusha keenay inaan ku jiibsado iyaguna ay dul qaataan waxaan ka sugaynaa walaalada iyaguna ay ka qaataan oo nabadda ku yimaadaan waxaan uga gudbayaa waxaan laga sugayaa dowlad cusub na soo dhisno dowladda waxaan doonayaa dhowr badan ka taabto mabaadida ay ku shaqayn doonto horta xilku ma aha marka laysu magacaabo madaxweyne ama wasiir meel qofku ku baraaro oo ka taajiro oo dadkiisu qabsan noqon mayso dowladda soo wada waxaan badan idinku qaadaya qof kasta oo xil qabta oo golaha wasiirada ama hay-adaha dowladda ka mid ah hawsha loo dhibay in lagula xisaabtamo saacad iyo maal wixii loo dhibay iyo hadday waqti tahay waxaan ugu mala qaadanayaa inta qof bini aadmi kari kara inaanu ku dadaalno sinaan iyo cadaalad oo dadka iyo dalkaba aan u sinaano sidii halkan lagaga dardaarmayay waxay noqon doontaa inay noqoto dowladda dhistoora iyo shaqaalaheedu in dadku xilka qaranka ay ku kala sarreyn karaan madaxweyne wasiir agaasime janan askar kabtan inay saa kala sarreeyaan laakiin sharciga loo simayahay in dalku soo horjeedo waxaan taa uga gudbayaa somaliland maanta waxaa taalla hawl badan oo si hore aynu uga bixi jiraanu kaga gudubno waxyaalaha in hor yaalla beesha caalamka waa mahadnaqaynaa wixii hore ayna soo tareen iyo waxay nagu caawiyeen waxaan se u sheegaynaa haddaanu somaliland nahay inaanaan ku faraxsanayn in nala caawiyo ee hamigayaga iyo firadayadoo ay ahayd inaan anagu wax caawino haddaanu somaliland nahay waxaanu arkaynaa
dadkii aanu isku midka ahayn ee aanu ama kaba itaafoonay ama kaba aqoon baday 1960 markaan gobonimada qaadanay ay kama tahay aanu isku systemka ahayn ee aanu dhammaantay dhaxalay systemkii dowladda Ingiriiska ee bariga xoog weyn dalka badan weysan jirtay oo ay kama tahay Kenya oo ay kama tahay Tanzania oo ay kama tahay Uganda oo ay kama tahay Singapore oo ay kama tahay Malaysia oo ay kama tahay Korea South Korea isku itaal baynu ahay marka wixii qaadan ama dhaga qomada ama ka system dowladda wanaagsan maanta dhammaantood way caawiyaan waxaanay noo arkaan dad aan waxba qabsan karin waxaan leeyahay dhibaatadaas waxay naga soo gaadhay midnimadii aan raacnay koonfurta oo taraxmada ay halka ka dhigay waxaan marageedu yahay dowr iyo 20 sano anaga la ictiraafin dowladeed iyagana ilaahay ka saaray masiibadu ku jirtay sidaan u kala duwanahay ayaan u kala duwanay markaa waxaan qabaa hadday maanta Soomaaliya kaliya dhaqan lahayd maanta inay ka mid ahaan dowladda deeqta bixiya ee taariikhda bixiya ee iyaga lama jeerto ee ilaa halka joogay muwaadiniinta Soomaaliya waxa ka doonaya inay tawfiqraan inaanay oranin markay sheekaysanayaan cid inaga wanaagsan barxamar waxa ka dhacayeen dalkan waxaynu nahay ka saddexaad oo ugu faqiirsan dalka Soomaaliland tahay waxaynu hooseeyeen Mali iyo Congo kaliya ma aha inuu ismajarano ismaadino waa inuu leeyahay Kuwait halka gaadhay waa inuu leeyahay Malaysia halka gaadhay waa inuu leeyahay Singapore ay naga liitay oo maanta Malaysia ka baxday lalahan naga bax kuma qaad kareen halka ay marayso inaynu kuwa maalinta la mid ah ama Korean baad sheegaya halka inaynu gaadho dhixirkii sare ee lumay inaynu ka doosna waynu baahanahay haddii Soomaaliland nahay uma baahnay inuu qaylo u sheegayno taasaan ku ogaanaa ilaahay laabo shan sano soo socda oo aanu dib la qaadayno marka dalka in caawiya ama deeqaad bixin waxaan leeyahay kuwa faraxsan inaan qaadano deeqii sababo ninkii Ingiriiska ahaa dalka ugu soo horeeyay Richard Burton wuxuu naga qoray markuu saacad ka soo baxay heer ku socday dalkaas waa dalkii waxaysi bakshiishisi wala boqol sano goorma ku gudbinaa Soomaaliland ahay waxaan muwaadiniinteeda ka doonaya inay taakab karaan oo korba caawa la caawinaya yahay baan shaqadii caalamku waxaan u sheegnaa waxaan qabsanno wax noogu daray waxaan qabsanno ayba wax noogu daray ee gacan marna soo fidin waxa kale oo sheegaynaa ambassadorska ka fadhiya ee dowladaha Yurub ka yimid iyo caalamka oo dhan haddaan Soomaaliland nahay budgetka iyaga yar ee aan ciidana ga caawin waxaan ku ilaalinaa 780 kilomitir oo bad maanta adduunka waynu ognahay waxa ka socda dagaalada ka socda dhinac walba 780 kilomitir oo aan wada lahayn oo xeeba oo buuraleyda oo aad sababta waa meel ugu sugan dadka sameeyaan baartay fadqalooyinka ayaan ku ilaalinaa oo aan ciidana ga caawinin oo xoogga iyaga iyo dadka iyaga shicibka ay wada ilaaliyaan taasi ammaankeeda annaga fadhino waa koog waxaan ugu fadhiyaa dalka Jaarka ee Djibouti ka mid tahay ee Ethiopia ka mid tahay iyo Kenya ka mid tahay iyo caalamka oo dhan ilaa Mareykan gaarsiin waxay ku fadhiyaan lacagta xoogta ku daafacano waxa wixii fadqalada caalamka fidnay waxaan u taaleenahay waxaan ku bixinaa nabadgeliyada budgetkayga xoogayga waxay ka go'an tahay tacliintayada waxay ka go'an tahay dhakhtarkayaga waxay ka go'an tahay jiyadkayaga waxay ka go'an tahay horumarkayaga caalamka waxaan xaq u leenahay inuu abaal mariyo oo naga caawiyo oo Soomaaliland aqoonsadaan waxa ay tahay ayaanu caalamka xaq u leenahay waayo anagu waxaan tarnaa caalamka waxaan ku soo gabagabanayaa anigoo mahadnaqaynta ka soo qayb gashay oo dhan waxaan u mahadnaqaynaa deeqbixiyaashu wixii ay nasiyeen ee hore noogu tooriyeen haddana weli waa u baahanaa waa dhismaynaa laakiin maaha baahi joogto ah oo gacanta soo bidoono insha Allah bismillaah kariim inaanu hore uga baxno waxaan u mahadnaqayaa madaxweynayaashii hore waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed muwaadiniinta ah ee birlabta ah ee goobta ah ee dalkooda soo dhistay sida awgeeshay u soo dhiseen iyaguna socda waxaan soo dhaweynayaa madaxda Jigjiga ee u horeeyo kulmiye garaad kulmiye ugaas Mustafa iyo madaxda Soomaaliland oo dhan oo aan maanta ka maqnay dhamaantood oo mahadnaqaya waxaan mahadnaqayaa culimada diinka waxaan mahadnaqayaa dhalinyaradii aan uga soo galeen gaar ahaan xaq baan inaan ku kulmiye aad u sii mahadnaqo waa iyaga markaa ay soo waxaan soo gudbiyay dhamaantood waa maateetiin dalalka Jaarka waxaan u sheegaynaa
dalalka jaarka waxaan u sheegaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta waa la kaftamay markii la arkay Djibouti oo waftiga intaa la ka socdo iyo Jigjigo intaa la ka socoto iyo Axmed Soo dawladda federaalka ka arkaya deetana waxaan kulnay maxamuud xashi waan kulan ee aan kaftanay wuxuu war maanta dawladda jaarka xoog weyn war waa huuna loo dooro way arkayaan galbeedku waa kuwa soo gurmaday gurmadkaaya waartana waxaan gaarsiinaa ilaa iyo Soomaaliland xadka halka ugu bariyaysa annagoo saaq gacmaha isu haysana oo uu sii horgali doono insha Allah Cali Khaliif oo aan maanta professor Cali Khaliif oo aad iyo aad u maantaqayro halka fadhiyo haddii Cali Khaliif oo maanta ay toro nimanka galbeedka la doortay waa sidee waxa balan ku qaadaya galbeedka iyo jaarkooda oo socdaan waartino iyo nabad iyo taageero barigeeya waxaan aad iyo aad u maantaqayaa xubinii أقوى وإلى هناك وإلى ما تقدر من هذا المبادئ سواء سعودي لما توا ما تأتي أبيات ما تأتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته